السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلا وعن habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo kugu soo gudbin doono dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dunida iyo waxyaabaha kale ee ka cusub habeennimadan. qodobadan caawa barnaamijka idinkuga haynana waxaa ka mid ah muxuu yahay saldhigga military ee Mareykanku ka dhisanayo xadka Gaza xilli indhaha caalamku ay kasii jeedaan halkaasi. Matalaaba amni mise qorshe siyaasadeed oo cusub wuxuu saldhiggan kaga duwan yahay ciidamadii caalamiga ah ee qorshuhu ahaa in la geeyo halkaasi. Sidee Xamaas uga falcelin doontaa dhismihiisa oo aan ku jirin qodobadii heshiiska Gaza? Og iyo falanqeyn gaar ah oo ku aadan arrinkan iyo doorka Israa'iil ay ku yeelan karto ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa xiisadda Washington iyo Tehran oo qarka u saaran marxalad halis ah. hanjabaadaha Mareykanka iyo digniinaha Iiraan haddaba ma isku bedeli doonaan isku horimaadyo toos ah? Waxay yihiin xulashooyinka labada dhinacba ay haystaan halkay samarayaan dadaalada diblomaasiyadeed ee xalka loogu raadinayay colaadan. Macluumaad xasaasi iyo xaaladihii ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa caawa. barnaamijka waxaan kaloon kusoo qaadanaynaa caawa warbaahinta Israa'iil oo weerar kulul ku qaaday Netanyahu iyadoo ay sii korayaan eedeymaha gudaha ee ka dhanka ah hogaamintiisa. waxaan caawa idiin soo gudbin doonaa warbixin ku aadan guuldarada istiraatiijiga ah ee lagu eedeynayo ninkan sida uu wiiqay sumcadda taageerada Mareykanka laga helo iyo sidoo kale malaha guul ee fashilmay ee dagaalka Iiraan ku aadan oo hadda Israa'iiliyiintu ay dib u eegayaan. dhammaan macluumaadkan oo faahfaahsan ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkeena caawa. Mareykanka ayaa waxa uu doonayaa in Gaza uu ka dhisto saldhig military oo aan ku jirin qodobadii heshiiska nabadda Gaza uu dhigayay halkaasi oo indhaha caalamku ay kasii jeedaan oo ay ku jeedaan xiisadda colaadeed ee bariga dhexe u dhaxaysa Mareykanka, Iiraan iyo Israa'iil. hay-adaha amniga ee Washington ayaa durba waxay bilaabeen inay soo saaraan qandaraasyo ku saabsan dhismayaal guurguura iyo minaarado laga maamulo howlgallada iyadoo la doonayo in xaruntaasi howlgal lagu buuxiyo ilaa dhowr bilood gudahood. tallaabadan ayaana la qaadayaa inkastoo kooxda iska caabinta ee Xamaas oo loo aqoonsado argagixiso ay weli diidan tahay inay hubka dhigto islamarkaana ay inta badan wadamada ka shaqeeya qorshaha hakiyeen ogolaanshahooda sababo la xiriira dagaalka Iiraan. balse dhanka kale ilaami ayaa waxay qiyaaseen in fursadda dagaal dib uga qarxa marinka Gaza ay ka badan tahay suurtagalnimada heshiis diblomaasiyadeed oo la gaaro. indhaha caalamka ayaan hadda u jeedsan marinka Gaza balse waxaa soo baxday in guddiga loo yaqaano golaha nabadda hay-adaha iyo shakhsiyaadka hoos yimaada ay isku diyaarinayaan ama isku dayayaan inay riixaan hirgelinta qorshaha Trump inkasta oo ay jiraan caqabado badan. tan ugu weyn ayaana ahayd welina ah diidmada Xamaas ee ku aadan inay soo wareejiso hubkeedii sida uu qorshaha dhigayo. wadahadaladii ugu dambeeyay ee Qaahiro lagu qabtay ayaana sidoo kale waxay noqdeen kuwo fashilmay inay soo saaraan qaacido ay hoggaanka ururka aqbalaan oo ku aadan hubka dhigista. inkasta oo arrintan ay hakad ku jirto haddana guddiga ayaa sii wada diyaarinta kaabayaasha tallaabooyinka xiga. guddiyo khubaro ah ayaa waxay diyaariyeen qorshayaal dhinacyo badan ah oo rayidka quseeya kuna jiraan dhinacyada waxbarashada, kaabayaasha dhaqaalaha iyo nadiifinta burburka si loogu diyaargaroobo marxaladda dib u dhiska Gaza ku aadan. wargeyska Israa'iil Hayom ayaa waxa uu soo warinayaa inuu ogolaaday in militariga Mareykanku uu bilaabay qorshaha dhismaha saldhig aad u weyn oo ku yaala xadka marinka Gaza, gaar ahaan meel aan ka fogeyn xirada Reim lagu magacaabo. saldhiggan ayaana loogu talagalay inuu noqdo xarun militari iyo mid rayid oo ay isticmaalaan hay-adaha iyo ciidamada imaan doona deegaanka si ay u hirgeliyaan qorshaha nabadda ee Trump. waxayna bedeli doontaa xaruntii caalamiga ahayd ee hore u jirtay ee lagu magacaabayay Kiryat Gat. xilligii ugu badnaa ee howlgalkaasina ama howlgalka Kiryat Gat xaruntaasi waxaa ka howlgeli jiray wakiilo ka kala socday in ka badan 24 dal oo ay ku jireen dalal Carbeed balse intooda badan oo isaga bixeen markii uu qarxay dagaalka Iiraan. qorshayaasha la xiriira kaabayaasha saldhigga cusub ayaa waxaa ka mid ah dhismaha minaarad loogu talagalay talis iyo kontaroolidda ciidamada goobta jooga. waxaa kale oo la ogaaday in Mareykanku uu durba bilaabay qandaraasyo kala duwan oo la xiriira dhismaha saldhigga military sida keenista dhismayaal guurguura oo ciidamadu isticmaalaan iyo xarumaha maamulka ah oo ku shaqayn doona ilaa dhismayaasha joogtada ah laga dhisayo goobtaasi. ilaa 5 dal ayaa ogolaaday inay ciidamo u soo diraan Gaza kuwaasi oo kala ah Indonesia,
Morocco, Kazakhstan, Kosovo iyo Albania, halka 3 dal oo kale ah Bangladesh, Pakistan iyo Azerbaijan ay muujiyeen kaliya rabitaan mabda ahaan ah oo ay ugu biiriyaan qorshahan. Si kastaba ahaatee, inta badan wadamadan ayaa si dhab ah u hakiyay ogolaanshahoodii sababo la xiriira dagaalka Iiraan ee gobolka ka socda. Inkastoo Indonesia dhankeedu ay sheegtay inay sii wado tababarka ciidankeeda loo qoondeeyay inay ka qayb noqdaan howlgalka nabadda ee Gaza ee xasilinta, kuwaasi oo gaaraya ku dhawaad 5,000 oo askari. Waxaase xusid mudan in Israa'iil ay dhankeedu diidan tahay in askar ka socota dalal ay cadow u aragto sida Bakistan iyo Turkiga la ogolaado inay ka qayb noqdaan qorshaha nabadda Gaza oo ay yimaadaan Gaza. Sida ay sheegeen ilaha amnina, dhismaha saldhigga cusub ee Mareykanka waxaa si buuxda ula socotay Israa'iil, iyadoo wasaaradda difaaca iyo ciidamada Israa'iil ay mas'uul ka yihiin bixinta taageerada iyo isku duwidda lagama maarmaanka u ah hirgelinta saldhiggan. Qiimeynta hay'adaha amniga Israa'iil ayaana ah in saldhigga lagu howlgelin karo ilaa 2 bilood gudahood, balse intaasi wax horumar ah lagama gaarin arrinta Xamaas ku aadan, iyadoo la rabo oo la isku dayo qorshahan la hirgeliyo. Howlaha halkaasi ka socdana waxay ku koobnaan doonaan isku duwidda diyaarinta qorshayaasha mustaqbalka ee saldhiggan. Mid ka mid ah ilaha amniga ayaa soo sheegay warshadaha Israa'iil Hayom in qiimeynta hadda jirta ay muujinayso in fursadda dagaal dib uga qarxa Gaza ay ka badan tahay suurtagalnimada ah in Xamaas hubka laga dhigo oo looga dhigo heshiis diblomaasi. Waa xagaag isla arrimaha bariga dhexe aynu ku sii soconay. Gudaha Israa'iil waxaa soo taraysa carada ka dhalatay hogaaminta Netanyahu iyo xukuumaddiisa, iyadoo lagu eedeynayo inuu xumeeyay sumcadda taageerada Israa'iil ay ka hesho Mareykanka. Waxaana warbaahintu ay qaadadhig ku sameynaysaa malaawaalka hay'adaha amniga iyo qaabka dagaal ee xukuumadda Israa'iil ee bariga dhexe ay kaga furan yihiin furmo dhowr ah oo dagaalada ku saabsan. Wargeyska Israa'iiliga ah ee Haaretz ayaa maqaal taftiran oo galinkii dambe ee maanta uu daabacay si adag waxa ugu dhaliilay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, isagoo sheegay inuu iska tallaabay xadkii caadiga ahaa kadib markii uu qaatay go'aankiisa musiibada ahaa ee ahaa in Mareykanka uu kusoo jeedo dagaal si wadajir ah loola galo Iiraan, islamarkaana uu ciidankii Israa'iil u diro xagga koonfurta Lebnaan oo weerar ay ka wadaan. Wargeysku waxa uu qiray in tani ay ahayd guuldarro musiibo leh, islamarkaana Netanyahu Israa'iil uu horseeday guuldarro xanuun badan oo ay kala kulantay sida hadalka loo dhigay cadowgeeda ugu weynaa uguna khatarta badnaa, isagoo la jeeda Iiraan, islamarkaana uu dhaawacay sumcadda taageeradii Mareykanka laga heli jiray ee Israa'iil la siin jiray. Dagaalka Iiraan oo ku bilaabmay malaawaal lagu fashilmay gaarisiisa oo ahaa in nidaamka Iiraan meesha laga saaro oo la rido, islamarkaana uu sii socday iyadoo la filayo guul fudud oo laga gaaro Xisbullah ayaa ugu dambeyntii isku bedelay tallaabo aan laga fiirsan oo mas'uuliyad lahayn, islamarkaana u muuqata mid jab ay kala kulmayaan dhinaca Israa'iil iyo Mareykanka. Wargeysku waxa uu sii watay qiimeyntiisa dagaalka, isagoo sheegay in Iiraan ay dagaalka uga soo baxday iyadoo ku xoog badan sidii hore kuna ciqaabi kartay Israa'iil tallaabooyin milatari oo qaado, islamarkaana ay ka dhaxashay weerarkii wadajirka ahaa midnimo gudaheeda ah, iyadoo sidoo kale diiday dalabaadka Mareykanka ee ahaa in la yareeyo barnaamijkeeda nukliyeerka kobcinta uraniumka lagu wado. Haaretz ayaa sidoo kale waxa uu qiray in Xisbullah ay kasoo kabatay dalkii xogayihii guud ee ururka Sayid Xasan Nasrallah ee sanadkii 2024 iyo khasaarayaashii soo gaaray kooxda, islamarkaana ay bilowday waxa uu ku tilmaamay dagaal dhow Malaysia oo ka dhana ciidanka Israa'iil. Geesta kalena telefishinka kanaalka 13aad ee Israa'iil laga leeyahay ayaa isna qiray in Iiraan ay ku guuleysatay inay wiiqdo waxa loogu yeero awoodda cabsigelinta ee Israa'iil ee bariga dhexe, iyadoo kanaalka 12aadna dhankiisa uu sheegay in Israa'iil ay gashay wareegyo isdaba joog ah oo iskahorimaada kuwaasi oo ay la gashay Iiraan, taasi oo keentay inay lumiso kararkeedii istiraatiijiga ahaa ee ugu muhiimsanaa. Kanaalku waxa uu qiray in Tehran ay ku guuleysatay inay dib isugu xirto jihooyinka kala duwan ee iskahorimaadada kadib 3 sano oo dagaal ah. Waxa kale oo uu sheegay in hay'adaha amniga iyo militariga Israa'iil aysan qiyaasi karin xaaladan kadib howlgalkii loo yaqaanay guuxa libaaxa, isagoo xusay in Israa'iil aysan horumar ka sameyn wax ka qabashada khataraha jiritaankeeda ku wajahan, balse ay ku mashquulsan tahay wareegyo xeeladeed oo Iiraan ay kaga hortagto. Xiriirka Netanyahu iyo Washington ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay waxa uu galay marxalad hoose, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna lagu sheegay in wicitaan khadka taleefanka ay ku yeesheen isaga iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu ugu yeeray Netanyahu qof waalan.
waxaana warbaahinta Mareykanku ay ku warantay in Netanyahu uu qaaday weerar ka dhan ah Iran si kasoo horjeeda hadallada iyo rabitaanka Donald Trump. Shalay Donald Trump waxa uu sheegay in Israel aysan jiri lahayn isaga la'aantiis. Hadalkan ayaana yimid kadib markii shabakada wararka Mareykanka Axios ay sheegtay in Netanyahu uu uga digay in Washington aysan la safan doonin Israel haddii ay dib ugu noqoto dagaal ay la gasho Iran. Marka laga hadlayo heshiis suurtagal ah oo lala gaaro Iran, Trump waxa uu sheegay in Netanyahu uusan lahayn doorasho kale oo aan ka ahayn inuu aqbalo heshiis kasta oo Washington ay la gaarto Tehran, isagoo carabka ku adkeeyay in go'aanka ugu dambeeya ee wadahadalada Iran uu ku jiro gacanta Mareykanka balse aanu ahayn mid ku jira gacanta Israel. waa hagaag daawadayaal marna waxaan u gudbi doonaa falanqeyn ku aadan ama warbixin ku saabsan falanqeynta hanjabaadaha cusub ee Trump ka soo yeeraya iyo digniinta xagga Iran xilli la saadaalinayo in dagaalku uu mar kale dib u bilaaban karo. waan eegi doonaa warbixintaasi balse marka hore aynu ku hakalno qadar xayisiin. ku soo dhawow diini academy duruusta quraanka iyo maadooyinka diiniga dadkeenuna ay bartaan waa daraje ma ogtihiin haddaba ku dadaal oo ku biir diiwaanka diini academy ma doonaysaa barashada quraanka kariimka iyo culumta diiniga fursadda waxaa ka helaysaa akademiyada waxbarashada diiniga ee diini academy. akademiyadu waxay ka kooban tahay 3 qaybood oo kala ah qaybta barashada higaada carabiga akhris iyo qoraalba muddo kooban qaybta quraanka kariimka maca tajwiid qaybta culumta shariicada sida xadiiska siirada fiqiga luqadda carabiga iyo qaybaha kale ee diinta oo hab online ah lagu baranayo. dugsigu waxa uu qaadanayaa arday cusub carruur iyo dad waaweynba waxaana uu furan yahay 24 saac 7 maalmoodba. wixii faahfaahin oo intaa dheer kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka dini-academy.com. ballanteenu waa Dini Academy. soo dhawaada mar kale daawadayaal habeen wanaagsan. weli waxaad daawanaysaan barnaamijka maxaa cusub oo si toos ah habeennimadan idinkaga imaanaya stuudiyaha labaad ee HBN. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan baraha internetka ee kala duwan sida Facebooka, YouTube-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. war degdeg ah macluumaad kale ee faallooyin ah waxaad ka akhrisan kartaan oo ka heli kartaan bogga internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirno HBN oo ka dhigo weelkaaga wararka. hagaag aynu markan warbixinta ugu dambeysa ee barnaamijka qoransano. xiisada colaadeed ee u dhaxaysa Washington iyo Tehran ee bariga dhexe ka jirta ayaa meel halis ah maraysa iyadoona gobolka uu galay marxalad xasaasi ah kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabay weerar military oo toos ah oo ka dhan ah Iran isagoo ku tilmaamay ciqaab ku habboon waxa uu ugu yeeray dib u dhac jiitanka Tehran ay ku hayso arrimaha wada xaajoodida. isbeddelkan degdega ah ee military oo ku soo beegmay iyadoo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance uu sheegay in heshiisku u dhow yahay afray dood siyaasadeed oo ballaaran oo khubaro ay ka qayb gashay taasi oo laga baahiyay telefishinka Al Jazeera si loo kala qaado lafagurka fursadaha dagaal nabad iyo saameyntooda amniga gobolka. Tim Constantine oo ah ku-xigeenka tirtiraha guud ee Washington Times ayaa sheegay in hadalka aqalka cad ay si weyn isku bedeleen isagoo xusay in Trump markii hore uu si guud uga hadli jiray balse hadda uu si cad u yiri waan weerari doonaa. Constantine waxa uu arrintan ku saweeyay in Washington ay aragtay hidista diyaaradda qowmaatiga u kacday Abeje iyo bartilmaameedsiga oo la kaca ah ee askarta Mareykanka inay yihiin dhacdooyin aan la cafin karin iyadoo la soo warinayo in maamulka Mareykanku uu aad uga niyad jabay habdhaqanka Iran. Xasan Axmediyan oo ah professor ku takhasusay daraasaadka bariga dhexe kana tirsan jaamacadda Tehran ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in kororka xiisadan uu qayb ka yahay xeeladaha cadaadiska ee miiska wada xaajoodka waxaana uu sharaxay in Iran ay bedeshay mabda'eeda amni ee dulqaadka kuna bedeshay isku dheelitir istiraatiiji ah isagoo xuseen haddii Washington ay qaado tallaabo military jawaabta Iran ay noqon doonto mid xoogan oo toos ah taasi oo gaari karta bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaala Israel iyo danaha Mareykanka ee gobolka. diblomaasiyadda maxaa ka dambeeya maxay yihiin tanaasulaadaha qarsoon iyo caqabada Obama ee Trump wajahayo. Liqa Maki oo ah inbaaro sare oo ka tirsan xarunta daraasaadka ee Al Jazeera ayaa sheegay in 2 toddobaad ka hor Trump uu diray wax ka bedelo ay ku jireen tanaasulaadyo muhiim ah kuwaasi oo ugu muhiimsanaa ogolaanshaha ah in la yareeyo uraniumka aadka loo kobciyay ee gudaha dhulka Iran sida Tehran ay dalbanaysay. marka waxa uu sheegay in Trump uu filayay jawaab degdeg ah oo ka timaada xagga Iran balse Tehran ay diiradda saartay magdhow dhaqaale iyo sii deynta lacagaha la xanibay
oo ay liiska kusoo dartay arrimahaasi oo Trump diidan yahay in si aan u qaadin dhabihii maamulka Obama kuwaasi oo muddo badan uu dhaliilayay waxaana ay dhiga jabisay Washington arrintaasi iyadoo ku riixday inay dedejiso cadaadiska military islamarkaana waqtigaasina ay wadi qadari ah oo u dhaqaaqay Tehran si uu uga qayb qaato dagaalada u dhaxeeya dagaalada ee ugu dambeeyay ee ku saabsan xalraadinta khilaafaadka iyo colaadda Bariga Dhexe. geesta kalena Axmed Jabal Suweeri oo ku takhasusay siyaasadda Bariga Dhexe ayaa waxa uu sheegay in istiraatiijiyadda Iran ay ku dhisan tahay mahmaah Farisi ah oo oranaysa tirinta digaaga waxaa la sameeyaa dhamaadka deyrta taasi oo loola jeedo in la qiimeeyo natiijada ugu dambeysa halkii laga falcelin lahaa dhacdooyinka degdega ah waxaana sidoo kale uu tilmaamay in Trump uu wajahayo cadaadis gudaha ah maadaama sicir bararka Mareykanka uu gaaray ilaa 4.2% halka kororka mushaarkana uu yahay 3.2% taasi oo ku riixaysa inuu raadiyo guul siyaasadeed oo degdeg ah soo saabjiro xaaladan aan dagaalka iyo nabadda toona ku dhisnayn hadda si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay inaysan u muuqan in Washington ay dhab ahaan diyaar ugu tahay dagaal buuxa oo furan oo ay mar kala gasho marka laga hadlayo dhinaca saameynta gobolka aragtiyuhu way kala duwan yihiin Salih Al-Matawi oo ah madaxa xarunta daraasaadka siyaasadda Al-Madar ayaa sheegay in bayaankii wadajirka ahaa ee wasiirada arrimaha dibadda ee golaha iskaashiga khaliijka ka soo baxay gaar ahaan manaba ka yimid uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu xaqiijinayo awoodda ay wadamadu ay kaga jawaabi karaan xadgudubyada Iran si wadajir ah ama si gaar ah waxaana uu sheegay in qorshuhu uu sidoo kale ku wajahan yahay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay laga helo ilaalin dib loogu sameeyo xarumaha muhiimka ah sida garoonka diyaaradaha Kuwait iyo warshadaha sifaynta gaaska ee gobolka. Inter waxa uu dhaliilay mowqifka Mareykanka isagoo sheegay in diiradda uu saarayo danaha Washington iyo Tel Aviv isla markaana aanu tixgelin siinaynin amniga istiraatiijiga ah ee saaxiibadiisa gobolka ee khaliijka. dhankiisa Ibrahim Farxad oo ah professor ku takhasusay khilaafaadka caalamiga ah kana tirsan Machadka Daraasaadka Sare ee Doha ayaa sheegay in arrinta la xiriirta gudashada diyaaradda Abeja ay ficil ahaan dhamaatay isla markaana waxa diiradda hadda la saarayo ay tahay iskhilaafka rabitaanada siyaasadeed halkii uu ka ahaan lahaa isku dhac hubeysan oo toos ah. Farxad ayaana kusoo koobay faaladiisa inta labada khaliijka ugu jeedsatay golaha ammaanka ay ujeedadu tahay dhisidda sharciyad caalami ah iyo mid goboleed oo lagu saleeyo tallaabo kasta oo mustaqbalka la qaado isagoona ka digay in haddii xiisada la xakameyn waayo inay gobolka gelin karto wadooyin aad u adag gaar ahaan maadaama ay si dhow isugu xiran yihiin jihooyinka Iran, Lubnaan iyo weliba Yemen. waa hagaag daawadayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii maxaa cusub oo ku eegeynay xaaladihii ugu dambeeyay ee dunida iyo Bariga Dhexe si aad u heshaan wararka macluumaadka iyo halkan aan kusoo gudbinay barnaamijyada haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore ugu xirnaynina nagu soo biira tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. qurbo-joogta Soomaaliyeed ee ku nool qaaradaha adduunka sida Yurub, Ameerika, Aasiya, Australia iyo Afrika waxay hadda kadib si dhib la'aan ah lacagaha ugu soo diri karaan dalka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer kuna soo diraya adeegga casriga ah ee eBesa oo ka hawlgala guud ahaan Soomaaliya hoos tagana bangiga caalamiga ah ee IBS. haddaba sidee lacag loogu soo diri karaa eBesa? ugu horrayn soo fur abka Ria Money Transfer dooro dalka Soomaaliya kadibna geli lacagta aad dirayso ka dooro halkan habka lacag diristaada oo ah mobile wallet sidoo kale dooro payment methodka aad rabto in lacagta aad dirayso ku bixiso kadib riix continue geli magaca qofka aad lacagta u dirayso dooro mobile walletka aad lacagta ku dirayso oo ah eBesa kadib geli lambarka qofka aad lacagta u dirayso adigoo marka hore dooranaya koodhka Soomaaliya oo ah +252 geli xogta dheeraadka ah ee qofka aad lacagta u dirayso sida xiriirka idinka dhaxeeya halka uu joogo iyo sababta aad lacagta ugu dirayso kadibna riix continue hadda waa dirtay lacagta isla markiiba ayay ugu dhacaysaa eBesihiisa
qofkii aad u dirtay isagoo jooga gurigiisa ama goobtiisa shaqada. e-pesa